أنبا حلا شديدو حبيقي نفتيدو أنبا حلا شديدو حبيقي نفتيدو إسكيجي يوماكي وقلبي قاعد وحيرتاخي هديجي دردورو عايزو أنقذينو حردي معانو قلبي قاعد وحيرتاخي حناني جعيبكا هديجي دردورو عايزو أنقذينو حردي معانو قلبي قاعد وحيرتاخي حناني جعيبكا هندري قرشادا حكيمكا كوسيو حسنو وحاتا خير قبا ركبة حلا شديسي أصحابي marka hore waa idin salaamayaa salaan ka soo go'day kasha iyo laabta salaan ka bacdi waxaan doonayaa in aan idinka sheekeeyo taariikhdaydii horay aan u soo maray baan doonayaa in aan idinka sheekeeyo waxa weeyaan aniga alxamdulillahi rabbil caalamiin horta taariikh xun ma aan soo marin laakiinse marmar taariikho adag way iska jiraan adduunka oo la soo maro waxa weeye aniga dhalashadayda marka u horeysa waxaan ku dhashay magaalada muqdisho isbitaal banaadir waan ka soo qaxnay waxaan tagnay boosaaso waan ka tagnay waxaan tagnay ayl magaalo la yiraahdo magaalo madaxda ayl ba anigu u aqaanaa laakiin dadku waxay u yaqaanaan degmada quruxda badan ee qadiimiga ah marka aniga magaalo madaxa ii ahaato dadkana degmo qurux badan oo qadiimi ah u ahaato laakiin aniga waxa weeye waan ku barbaaray waa magaalo aan ku barbaaray oo aan wax ku bartay dugsigayga hoose 1 ilaa 7 waxaan ku dhigtay haliyaabinin haddaan qajiliyaa asxaabay waan ku cusbahay meesha yaan layla yaabin haddaan qajilo waxaan ku bartay dugsi hoose ilaa 7 dugsi dhexe waxaan u soo wareegay magaalada Garoowe darwiish baan 7 ka bilaabay ilaa 8 form 1 form 2 gambool form 2 waan kaga saaqiday waan fakiray aniga ma ahayn qof macnihii eheliyad aad u badan ay meesha u joogto garab istaag iyo caawin badan haysata waxaan ku xisaabtamay secondary haddaan dhammeeyo jaamacad baan u baahnahay jaamacaddii ma awoodo awoodayda markaan ku xisaabtamay waxaa dhacday in aan secondary saaqid ahaan aanan uga tegin dakliyadayda darteed baan uga tegay waay hooyaday baa meesha ii joogtay ha ahaatee hooyaday kaliya far kaliya fool ma dhaqdo ilaa iyo jaamacad markaasna aan qaxootinahay waxba noogama saacidi karto xilli aan qaxooti ah ma aan ahayn markaa laakiin si kastaad muddo u joogtid qof dumar oo kaliya oo ragna garab taagnayn waxba ma qaban kadho hooyaday waxay noo korisay si fani ah oo bini aadan ilmihiisa uu u korsada sida ugu fiican oo wanaag waxbarasho sharaf quraanka 2 jeer ay ii dhamaysay ilaa iyo form 2 secondary markay gaarsay aan ka haray ay ugu ciqaabtay waliba tiri maxaa ka galay waxa jaamacad ku dhiganaysa aniga awoodeeda la haya waxaan yeestay in aan galo macad caafimaad si aan dakhliga aan jaamacadda ku dhiganayo anigu ula soo baxo macadka caafimaadka ayaan galay waxa iga saaciday wiil secondary-ga intaan ahaa aan iskuursanay oo Umar Maxamuud ah hooyadii macadka caafimaad waan dhameeyay si sharaf iyo caaqibo leh baan ku dhameeyay haddii aan dhameeyay isbitaalka Garoowe baan lacag la'aan 6 bilood kaga shaqeeyay ayl baan aaday si magaaladaydii waxa wasaaraddu igu tiraahday magaalada aad u dhalatay oo wax ka baratay wax ka soo waxbarasho tagtay
waa in aad sanad usoo shaqaysaa waxna usoo barataa usoo qabataa MCH ayl oo imtixaan loo galayo ayaan seminar mooday ilinka ayaan ka istaagay seminarkan baan doonayaa in laygu daro ruux seminar maaha imtixaan weeye iskaga tag baa laygu yiri aan qajiliyayaan la yaabin wuxuu seminar weeye seminar ma ahayn imtixaan weeye baa laygu yiri badana isma dhahin dadka magaalada ay jooga waxbay baran kartaa ama ahliyad maadaama adeero aabe walaal midna uusan u joogin meesha qof soo bixi kartay noqonaysaa laakiin juhdiga aasiisid fahmadaada iyo caqligaaga ku xiran yihiin xulba waan diiqadoonayaa noloshayda markaan ka sheekaynayo imtixaanka ayaan u galay qualified midwife number 2 baan galay number 1 maymuun gabar la yiraahdo maymuun cali luweyn baa gashay number 2 baan ugu galay way jirtaan caqabado inuu qofku la kulmayo markuu shaqo raadis yahay way jirtaa markuu wax baranayo caqabado xag lacageed inuu la kulmayo intaba waan usoo dhabar adeegay waxaan gaaray heerka shaqadayda aan anigu gacantayda ku shaqaysan lahaa waa 2008 weeye waan yaraa runtii hadda intaan leekay maan leekayn qisada intaasaan ku ekeynayaa hadda inta dambana waxaan soo gudbin doonaa insha allah biri xilligan oo kale galabnimo halkeedayna nooga bilaabanaysaa waa idin salaamaya dhammaantiin culumiya caaqil nin iyo naag bismillaahi raxmaani raxiim asxaabey isoo noqod wanaagsan maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 26 Juun maalin hore ayaa dhacday inaan taariikhdeedii bilaabay haddii aan bilaabay anoo aan dhammaystirin ayaan ka baxay haddana waxaan dhahay dib baan isku soo laabanaynaa kulanti wacan oo wanaagsan baa idin leeyahay asxaabey haddii aan qajilanaya laygu qoslin horena waa idin ku sheegi jiray waxa waaye haddii aan caafimaadkii dhameeyay oo laygu yiraahday ayl u shaqo tag sheekada meesheeda baan ka bilaabayaa haddii aan caafimaadka dhameeyay oo layiri ayl sanad ka soo shaqee waa idin sheegay in meel aan seminar mooday oo imtixaan galay kaalinta labaad ayaan galay meeshaydan ka shaqaysan jiray muddo adigu dhowr sano anigoo ka shaqaynaya baa ilmahayga axmed iyo aasiya aabahood ayaan macnihii kulan sheeko yeelanay isaga oo ku cabanaya in maxay ahayd reerkooda ay cabiidsadaan oo nin hooyadii qaba oo wixiisa 24 saac ku haysto oo raba in laga caawiyo markii waa jeclahaydiisa ay igu socon weyday waxbashada ay soo gudbistay muddo ayaan diiday muddo haddaan diiday kadib de qalbi aadana waa miskiin waan iska ogolaaday calaf iyo ilmaan dhex yeelay kadib waan isguursanay muddo anagoo isqabno oo cunug yarna ii joogo gabar aasiya la dhahna uurkeeda aan leeyahay ayaa waxaa dhacday in hooyadii ay jiratay hooyadii haddii ay jiratay waxaan nimaanay garoowe isagoo waliba diidan baan kusoo qasbay inaan garoowe nimaano isbitaalkan hooyadii dhowr bilood ku haynay bacdeen isbitaalka way ka baxday anna waan umulay kadib ninkii dhibaatooyin iyo afaaro iyo qabiil iyo ku bireynaya tagan ku dhigaya iyo dhibaato dhan buu igu sameeyay wax iga cishti waan waayay waan ka shaqaysan waayay meel shaqadan ka aadi waayay sharcigan la tigsaday warqadaydan ka qaatay iyadoo ay awalba jirtay ninku nin badiiqaana buu ahaa nin biri ka shaqaysan kara muusan ahayn awalba halkan aniga keligay baa ka shaqayn jiray isaguna dhaw wuxuu kasoo shaqayn jiray wuxuu helo wuxuu tol ka helayo wuxuu dhagaxiisa xoogaa ka helo waan isku dirsan jiray dad waxaan ahayn isku tiirsan oo wax wada cuna maadaama uu dhibaateen siyaada ii la yimina anigana cid iga celisana hore aan idinku sheegay walaal aan u diray midna uusan meesha ii joogin go'aan waxaan ku gaaray inaan madaxayga ka qaato ilaahay weynaa waa ii fududeeyay madaxayga ka qaatay madaxayga haddii aan ka qaatay baa waxaa dhacday in dadkayga ehliyadeedii ilmaha igu xoogaa gacan siiso anna waxaan niyeystay maadaama ilmihii xoogaa lagu gacan siinay inta aad shaqaysanaysid jaamacad dhigo ila waxbarasho lagama weynaada sooma sidii baan jaamacad ku galay 3 sano oo jaamacadda Boosaaso baan dhigtay oo degree midwife ah jaamacadaydii waan ka qaatay shahaadadeydii iyadoo ay saa tahay oo ay furay bisniga hari jirin nabraha suujiga ka muuqda xataa isaga igu dhigay hadda uu iga hooseeya waxba uma haysto waxa weeyaan qof walba oo bini aadan nin walba wixii loo katibay waa la kulansiin kodadaydii horteed inaan dhintaa
kaafka kuma taalo anuu igu hanjabi jiray inuu ibraniyo togay dhigayo laakiin hadda isagii baa iga hooseeyo dhintay runtii kuma faraxsan ha umaleynaa inaan ku faraxsanahay waa shaydaan qof gal ah haduu dhinto lagu ma farxo naftan ilaahay baa gooyo gunta ilmahayga garabkoodi oo banaanaaday weeye laakiin aad iyo aad inuu ii dhibaateeyay in islaamka la wadaago baan meesha u soo fariistay caqabad aan Shucayb ahayn ima soo marin nolosheedii intaan jiray iyo dadkiisa ilaahayna waa iga gudbiyay soo ma fahmin ilaahay ha naxariistaan leeyahay dambigiisana Allah dhaafo kiisa hore iyo kiisa dambe hadda dambi loo qori maayo laakiinse waxa dhacday in uu dhinto ninkaasi isaga ah hadii uu dhintay waxa jirtay in aan aadno tacsidii ilmihii baan geeyay hooyadiisa iga dhigtay aan ku samrahay la joogeen maalinta dambe ilmihii soo fiiray haddaan isirina hargeysay jiraan baa lagu yiri ilmahaagi waxaa la siiri hargeysa indhiga dhaga ay ku tagta malaha waan run weligay midkiin aan Puntland dhinacna maan dhaafin ha ahaato waan tagay ilmahaygi baan doontay waan soo kaxaystay inkastoo liigu xumeeyay xagga markaan tago xataa liigu yiri askari Puntland aad tahay meesha waa lagu xirayaa dhibaatooyin caqabado noocaas ah ku gabata laakiinse mukulaal ilmaheedu laga qaaday meesha la geeyo way tagi Allah qof bini aadan oo ilmihiisa laga qaatay hawsha hadii halka ay mareysay waxa dhacday ninka nin baa dilay ilaahay ku sababay qabiilkiisa halkan kama sheegayo ninka dilay laakiin ninka ilmaha iga dhalay Ciise Maxamuud ayuu ahaa waxa dhacday in ninkii magti laga keenay laba magood ay qaateen magba ilmaha la siiyay magna yaga qaatay ilmaha magti la siiyay ayaa nabadoonku aniga motor saaray wuxuu igu yiri guri aan leeyahay idin kaga maxay haytay ilmaha xaqooda guri aan leeyahay ma ku gadanaya walaalkay baan dhakhtar ku geysanaya waan ka diiday markii aan ka diiday maxkamaddu tagay maxkamadda hadii aan wada tagnayna aniga waxa la yiri agti ka caawiya saaxiib agti waa hor ku furay ninku ilmahaana ilaa ay koraan waxay arkayaan ma jirto ninkii sidii bay ugu hirgashay in uu walaalkiis ku geysto Turki oo ku soo daawaysto wuxuu ku dhintay ilaaha uu ku dhinto iguna duceeyay asxaabay maxay lacagtina uu ku qaato waxaana u fududeeyay Cabdinuur oo jaamaca Xuseen oo ah maxkamadda maxay haytay gudoomiyaheeda xoogaa laaluushana uu ka qaatay waxaan qarinayaa mala abtinaa hadii la xirayo waxaan qarinayaa ma jirto nacad ba weerartood ku taale maxay haytay sidii baan banaanka kaga soo maray anigu ilmahaygana awal baan haystay ana kursin jiray aabahoodna iguma biili jirin awow baan igu biili jirin hooyada cid ahayn oo reerkayga gacan igu siin jiray male haddana aniga haysta kadib waxa dhacday in aan guursaday wiil Soomaaliyeed oo hawiye ah oo wixii hore aan guursan jiray oo dhanba Maxamuud Salaamanki oo dhanba ka fiican oo aniga iyo ilmahayga kor noo qaaday shaqada waan ka soo tagay waadi soo sheekay dhaafshay ninkaas nafti igu keenay hawlo kale tan oo awgood jirana waa ka soo tagay laakiin hadii aan wax ka bartay oo jaamacadda iga dhineed baan ka dhameystirtay shukran baan leeyahay wuxuu iga dhigay fanaanad si aan u amal beelin in aan heeso sidii loo heesi lahaa wadadan heesta u mari lahaa buu i baray hadda fanaanad baan heestan doona qaadi karaa ninkii maamulaha meesha ka ahaa oo Xirshiraq Belan dhijirba isagana caqabad igu qabtay waan la yaabanahay 2020 caqabada aan caadi ahayn ba soo maray inta kale xumaan ma arkin noloshayda Xirshiraq Belan caqbu madaxa iga qabtay waan ii diiday inuu igu qarameeyo fanaanimo ehliyadii meesha ku noolay dad aan waanan ba macna garanayn waxay yihiin ma garanayee waa bir la lahaa maxay haytay waxay dhaheen marka hore way soo dhaweeyeen laakiin markii aan fanaan noqday iyaguna cad bay igu qabteen macnaha waxay yihiin ma garanay u leeyahay ma ahan tol ma ahan daciifnimo ay daciif yihiin laakiin waa dad aan garta goyn karin warku halkaas ku cadeey waa dad aan garta hilib bisil kala goyn karin laba qof oo is hayaan kala celin karin ha ahaatee ninka caqabada ugu weyn igu qabtay oo xumaanta ugu weyn igu sameeyay oo calool xumada ugu weyn aan u qaaday waa Xirshiraq Belan af Soomaalina wuxuu iga dhigay haduu ninkaygu suuliga aado naagta tiri aad inuu dhaho doqon dhashay baan sagana leeyahay ftada timaha kule soo ma fahmin afkan da ku aarsanaya la adinkaga ma aarsan karanine naag baan ahay arrinkaygu sidaas uu ahaa sida iyadoo abaa waxaan u tagay Axmed Cabdullaahi Samtar Layli General iyo ka badan bay inuu noqdaan Ilaahay ugu rajeynayaa wuu shaqaaleeyay tababar baan maray
haddana tababarkii labaad oo baandada baanbayda ku jira mishaarkayga waan qaataa mishaar iyo gunno intaba wuu noo qoray boqortooyo weeye madaxweynaha Soomaaliya baan ka dhigi lahaa hadii layga amarsanayo ninkaas xaq yaqaan baan dhihi lahaa hogaamiyaha garla oo hormuudu awoodar haweyn mee wax saas ah marka walaalayaasheeda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha lahow bal ka jawaaba wanaag iyo dhibaataba ana hadda wanaagaygu wixii badnaa oo isoo maray kama aan sheekayn laakiin intaas oo dhibaato aba isu kay xigtay haddana waa ka noole oo qoslaya talada idinkaan idin dhiibay bal ka sheekeeyo walaa adduunyadan qof adduunka joogo maxaa aragti ku laaban baa la yiri ninkii yiri waxa ma cunin baahideedusan arkin ninkii yiri waxa ma maqlinna inteedusan jirin meel waa bari la yiraahdo baan ku soo biiray hadii aan ku soo biiray runtii marka hore dadku way i rabeen ha ahaatee waxay isdheen mindhay boosaskiina iyo jagooyinkiina ama la dika qaadaa markii uu ninkaygu iga dhigay maxayd fanaanad aad bay xumeeyeen inta aan fanaanka ahayn laakiin aad bay i rabeen oo ii soo dhaweynayeen aniguna aan marxabeynay isagii waaridkiis bay ilaahay ma cadaabo isagu waa ii hagar baxay ha ahaatee nin waxa mas'uul ka ahaa meesha la dhaho xirsi shalaqbeen aad buu i xumay aad buu cagta igu qabtay ugu yaraan 20 naagood buu igu soo horsaaray anigu soo baxo heesayga YouTube-ka yaacayaan uma gelin macnihii baahi ahaysa laakiin amal baan ka dhiganay way qofka bini aadamka amal la'aan meel ma fadhiyo karo hadda waxaan ku biiray xirada continue afraad waxa joogo nin ehel khayr ah oo la yiraahdo Layli Ahmed Abdullahi Samantar ayaa la yiraahdaa run ahaantii dhibaatadii ahaysay madax xanuunkii iyo fikirkii waan kaga reystay muddo anigoo sida isaga jira waxa dhacday in ilmahayga aabahood uu dhinto anigoo iska shaqaysanaya ciidanka tababar ugu jira baa waxa dhacday in ilmahayga aabahood uu dhinto ilmahayga inaan tacsida geeyo in la iga xado in Hargeysa la geeyay Hargeysa hadii la geeyay ilaahay kuma samadaraade anigoo aan waligay Hargeysa tigin Puntland dhinacna uma dhaafin aan waligay xamar xilligan ka imi mooyee ayaan Hargeysa tagay waan soo kaxaystay ilmahaygii waan imaaday 40,000 oo dhaxal oo aabahood uga dhintay baa maxkamad la igu saaray anigoon ba u dan lahaynba maxkamadda hadii la igu saaray nabadoonka ayaa wuxuu ku sheekeeyay in uu isagu awal hayay haddana uu wuxuu u qaban doono 2 bilood baa ka soo rogtay wuxuu ilmuhu ugu qabtay male lacagtina wuxuu ku dhafsaday walaalkiis oo xanuunsan dhibaato ayaa ka taagan Puntland maxkamaduna xaq soor aysan lahayn oo ninkii xiga ay wuxuu qabanaysaa ama ninkii lacag siiya maxay haytay agoonta waxaadana indhahooda 5 ah la cunayo aan cidnayna waxba ka qabanayn intii igu dib badnayd taariikhdeeda intaas ay ahayd asagana Allah baan raacinay waayo aanu xaq kuma leeyahay laakiin ilmahayga xaq u laabood dhintaan uu ninku ima qabin ehel khayrka ay sheegay ay qabeen aniga markuu ninkan dhimanay shaqul kuma lahayn xuquuqdooda uma baahni laakiin ilmahayga aabood waxay ka heleen xaq bay u leeyihiin Abdinuur ninka la yiraahdo oo maxkamadda haysta ayaa laaluush qaato cag ka saaray nabadoonku ku wareejiyay nabadoonkuna walaalkiis buu Turki ugu diray caafimaad soo ma fahmin taas xilliga ay koraan bay u tahay xaq darro cunan iyaga ka soo baxaysa aniga nafsiyan ninkaas way igu xumeeyay Puntland maxay xirsi shalaqbeen in la yiraahdo iyo kooxdiisu waa xumaysay aloo aadan beerka u dhiman inta kale